السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة عشان قيمة قدرين تمضن وقتيان كلا مقنين وحجري مشغول عاد فربنا إن شاء الله تعالى برمشي هروسي برمشين كلا أيام صوبتنا إن شاء الله تعالى أدني فرح جليدونا. أنا أقول كلو ما أنت وحربنا إن شاء الله تعالى إن كهذا النوع قصة آت وخيمة بدن أيام إن شاء الله تعالى قصة سي بل وحير إلى دعوة أكتو aad baad u mahadsantihiin daawashada daawanaysaan fiidiyogan. runtii dadkii daawada fiidiyooshayna aad bay u mahadsan yihiin, waxaana leenahay mar waliba waxay tihiin farxadayna. wiil dhalinyaro oo Carbeed oo ku nool mid ka mid ah dawladaha Yurubta wuxuu la shaqeeyaa shirkado gawaarida soo saara. maalin maalmaha ka mid ah isagoo suuqa dukaamaysi u soo aaday supermarket uu joogay ayuu ku arkay gabar niqaaban oo aad u xishoonaysa, sidoo kalena ka dukaamaysanaysay isla supermarketka. gabadhii markii wixii ay u baahnayd soo dhamaysatay waxay soo aaday qaybta lacagta lagu dhiibo. qaybta lacag bixintana waxaa fadhisay gabar dhalinyaro ah oo asal ahaan u dhalatay dal Carbeed balse wadata dhar aan xushmad lahayn, yacni dhar aan asturnaan lahayn, sidoo kalena wejiga ka soo buuxsatay make-up aad u fara badan. gabadhii niqaabka wadatay ayay alaabti ka qaadaysaa si ay alaabta u xisaabiso kadibna ugu sheegtay lacagta. gabadhii niqaabnayd ayay u eegtay diinta iyo dhaqankii Carbeed ayay ka tagtay, quruxdii Carbeed ayay meel u dhacday, xijaabka ayay iska tuurtay. tahay iyadoo weliba ku eegaysa indhayas ma leh. waxay yasaysaa dharka ay wadato iyo sida ay u asturan tahay ama niqaabka ay xiran tahay. alaabtii ayay dhulka ku daadinaysaa, waxayna u muujinaysaa ixtiraam darro iyo weliba inaysan wax xushmada u haynin. mar qura ayuu afkeeda ka soo baxay hadal soo riixayay, waxayna tiri dhibaatooyin badan ayaa nagu haysta dalalkan Yurub. dhibaatooyinkaas midda ugu weyn waxay tahay niqaabkan ama dhashareerkan aad xiran tahay. waddankani ma ahan meeshii lagu cibaadaysanayay, waddankan waddan cibaado ma ahan. allahu akbar. waad aragtaa maanta gabdhaha sida isku qaabinayaan, sida social mediaha gabar weligeed aan la arkin wejigeeda iyadoo xijaaban mari jirtay ayaa maanta waxaad arkaysaa iyadoo TikTok dhex taalo misna niikinaysa. wallaahi waa arrin aad iyo aad u dhibaato badan. rabto inaad diintaada muujiso ama dhaqankaaga islaamiga ah aad soo bandhigto. gabadhay niqaabnayd intaas dulqaad ayay muujinaysay, balse markii dambe niqaabkeena shareerkii ayay iska rogtay. saawaaba gabar indho buluuga leh, sidoo kalena u dhalatay waddankan gabadhan Carbeed ee qaybta lacag qaadida fadhisa. yacni gabadhan lagu leeyahay orod u noqo waddankaagii, waddankan hadda la joogo ayayba u dhalatay. sidaa daraaddeedna waxay joogtaynaysaa shacaa'irta islaamka, sidoo kalena way niqaaban tahay. iimaankeeda iyo xishoodkeeduba ma siinin inay dhaqanka diinta islaamka ka tagto. mar qura ayay gabadhii lacagta qaadaysa ku tiri halkan waa waddankayga, tanina waa diintayda. waxaad iibsatay diintaadii adigoo ka tegay dhaqankaagii, aniguse ma iibsanayo diintayda kamana tegayo dhaqankayga, waana ku adkaysanayaa qabsashada diintayda. intaa kadibna way iska dhaqaaqday. intaa oo dhan ninkii Mustafa ahaa arrintaa wuu daawanayaa wuuna dhegaysanayaa. wuxuuse la yaabay arrinta cajiibka ee gabadhu samaysay iyo sida ay diinteeda ugu dheggan tahay iyo xishoodka iyo xushmadda ka muuqata. markii ay baxday ayuu dabagalay, kadibna xaafaddii ay gashay ayuu ka dabagalay. ugu dambaynna wuxuu ogaaday in gabadhan markii hore magaceeda la oran jiray Martina, markii dambe ay islaamtay, diinta islaamka ay qaadatayna ay la baxday magaca Faatima. aabaheed ayuu la hadlay oo la sheekaystay, wuxuuna kala hadlay inuu gabadhan ka doonayo guur, yacni inuu Mustafa guursado gabadhan la oran jiray Martina ee hadda la baxday markii islaamtay kadib Faatima. muddo kadibna gabadhii arrintii way ku waafaqday oo Mustafa iyo Faatimaba way isguursadeen. ilaahayna wuxuu ku irsaaqay 3 carruur ah. muddo kadibna Mustafa iyo xaaskiisii Faatima iyo ilmahoodiiba waxay u guureen waddankii Carbeed ee uu Mustafa u dhashay. markii ilmihii gaareen xilligii waxbarashada, Mustafa wuxuu u raadiyey iskuul ama madraso qaas ah, welibana u saaxiiba manaahij aad u wanaagsan, ilmihiisana uu ku aamini karo. wuxuuna arrintaa la wadaagay oo u sheegay xaaskiisa Faatima, laakiin Faatima way ka biyadiiday arrintaasi. luuqadeedii aan carabiga ahayn ayay ku tiri aniga iyo adiguba Mustafa waxaan nahay dad muslim ah. adigu waad garanaysaa luuqadda carabiga balse anigu luuqadda carabiga ma garanayo.
laakiin waxaa jira hal shay oo aan garanayo. halkaa shay waxaa weeye in qur'aanka kariimka uu yahay dastuurka nolosheenna iyo waddadii sharafteenna iyo sidoo kale dariiqii horumarkeenna. maxaanan qur'aanka kariimka ah muhiimadda u siinaynin oo aanan u danaynaynin marka ugu horraysa? anigu waxaan doonayaa wax kasta ka hor in ilmahaygu ay bartaan qur'aanka kariimka ah iyagoo ku baranaya tajwiidkiisa, tafsiirkiisa iyo wax walboo qur'aanku u baahan yahay. intaa kadibna waxaan doonayaa inay ilmahaygu ay bartaan culuumta kale, laakiin mar walbaba culuumta kale waxaa ka horreeya qur'aanka kariimka ah. waxay intaas sii raacisay laga soo bilaabo maalintii aan akhriyay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa aqriya qur'aanka. isagu waa qur'aanka wuxuu imaanayaa maalinta qiyaame isagoo u ergaynaya una shafaaco qaadaya asxaabtiisa. aniga qur'aanka wax iiga horreeya ma jiraan. ogowna mustafow, haddii ilmuhu qur'aanka ay bartaan oo xafidaan culuumta kale maba ka fakanayso, sida biyaha ay u cabayaan. wax ku adkaanayana ma jiraan haddii ilmuhu marka horeba ay ku afbilaabaan kalaamka alleh ee qur'aanka kariimka ah. mustafa ayaa hadalkii qaatay wuxuuna ku yidhi, faatimay, ilmuhu way yaryar yihiin. ayaduse go'aankeedii waxba iskama beddelin oo waxay ku celcelisay inay doonayso in ilmaha qur'aanka la baro marka hore. intaa kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigii mustafa wuxuu ku sharxay arrintaasii fikraddaasi ay soo jeedisay faatima. ilmihii ayuu u raadiyey madaraso iyo meel ay qur'aanka kariimkaa ka bartaan, sidoo kalena ay ku bartaan tajwiid, kala dhigdhigid iyo weliba qur'aanka micnihiisaba. wuxuu soo helay madrase aad u wanaagsan, laakiin hal dhib ayay lahayd. halka dhib wuxuu ahaa in ilmuhu aysan ka soo baxaynin madrasadaasi isbuuca oo dhan ilaa hal maalin mooye. maalmahaasi ay ku jiraan madrasadana aanu cidna soo booqan karin, xitaa hooyadood iyo aabbahood, ilaa halka maalin ee la siiyey maahane. arrintii ayuu xaaskiisa la wadaagay, wuxuuna islahaa way ka soo noqon doontaa fikirkeedii hore ay ku taagneed. laakiin qalbi adag oo sabraya iimaan ka buuxo ayay waxay ku tidhi, qur'aanka kariimka ah wax walba oo naga hor joogsada barashadiisa waa inaan ka gudubnaa una sabarnaa. dhib oo dhan wuu fudud yahay qur'aanka sokodiisa. ilmahayguna meesha ha iigu jiraan oo qur'aanka ha ii bartaan, iyagoo kala dhigdhigid iyo tajwiid iyo tafsiirba ku baranaya kalaamka alleh ee qur'aanka kariimka ah. sannaduhu waxay socdaanba ilmihii waxay barteen qur'aanka kariimka ah, waxay noqdeen kuwo xambaarsan oo xifdisan kalaamka alleh subxaanahu wa tacaala. saddexdoodiiba waxay noqdeen kuwo xifdisan qur'aanka kariimka ah. iska badaaya mid ka mid a hadduu qur'aan akhriyo, qofku wuxuu jeclaysanayaa in aanu joojin akhrinta uu qur'aanka akhrinayo. sida ay u xifdiyeen tajwiidka quruxda badan, sida tartiilka ay u kala dhigdhigayaan, iyo tafsiirka iyo macaanida sida ay ula socdaanba. aad ayuu ugu farxay arrintaasi mustafa, isagoo xaaskiisa aad ugu mahadcelinaya. wuxuuna yidhi, faadimadii reer yurub waxay ugu tarbiyaysay xubbiga iyo jacaylka qur'aanka kariimka ah. ilaahay subxaanahu wa tacaalana qalbigayga ayuu ku sharxay jeclaanshaha qur'aanka kariimka ah. runtiina anigoo carabiga garanaya, aniga ayaa ka mudnaa in aan arrintaa ku baraarujiyo, laakiin xaaskaygu waxay ahayd mid aad u wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigeeda ka dhigay mid saafi ah, jecelna khayr. taasi waa sax. mar waliba qur'aanku wuxuu ka horeeyaa culuumta oo dhan. qur'aankuna waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisa ah. ilmahani waa in la baraa. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. waxaana soo dejinaynaa qur-aanka isagoo caafimaad iyo naxariis u ah mu'miniinta, daalimiintana uma siyaadiyo waxaan khasaare ahayn. markaan u nimcaynayno dadka wuu jeedsadaa, yacnii xaqa ayuu ka fogaadaa, hadduu taabto dhibna wuu quustaa. waxaad dhahdaa, cid kasta ha ku camalfasho jidkeeda, yacnii diinteeda, eebbihiin baa og cidda jidkeedu hanuun badan yahay.
okay daawadayaasheena aad baa mahadsantihiin fadlan haddii aad hayso xog muhiim ah oo aad u qurux badan fadlan nala soo wadaag runtii fiidiyoga intaas ayaan kusoo koobaya insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inaan soo gudbi doono fiidiyaal aad u cajiib ah aad baad u mahadsan tahay daawashada aad daawanayso fiidiyogan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe noo saar laag noogu bixi insha allahu tacaala waxayna noqon doontaa dhiirigelin commenti noo sii reeb kan noo hadal fikirkaada aad ku quruxda badan noo sheer gare la wadaag asxaabtaada aad baad u mahadsan